ma ogtahay in Soomaaliya ay tahay waddan aad qani u ah mase ogtahay in sababta ay u horumari weyday oo 20 sano in ka badan ay uga socoto colaadda ay sabab u tahay wadamada deriska la ah gaar ahaan Itoobiya iyo Kenya ma ogtahay in Itoobiya gaar ahaan ay tahay cadow aad u weyn misana ay ku haweyn tahay in ay qabsato Soomaaliya mise ogtahay in madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha Itoobiya Meles Zenawi kursiga baarlamaanka uu ku fariisto in uu ku samaysan yahay ciid laga soo qaaday dalka Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Balcad taas oo ay u yaqaanaan in ay tahay caasimadda Itoobiya magacay ugu yeeraan ay tahay Taytay ma ogtahay in baasaboorka Soomaaliya in uu international noqdo ama caalami ay dawladda Itoobiya geed gaaban iyo geed dheerba u fuushay in ay ka hor istaagto mase ogtahay wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya in arrintaas kaalin lixaad uu ka qaatay isagoo oo dhowr bilood maray daafaha caalamka si aan loo aqoonsan baasaboorka Soomaaliya haddaba walaal waxaan ka codsanaynaa in aad dhageysatid muxaadaradan aan kugu soo post gareyn doono linkigeeda page-kan hoos ku xusan mahadsanid war ma ogtahay Itoobiya calankeedii hore in uu ahaa calan aan xidig iyo buluug midna aan lahayn 1996 Itoobiya calankeeda waxay ku soo dartay xidig iyo kalarka ama midabka buluuga taas oo ay tahay macnaheedu in ay doonayso in ay Soomaaliya qabsato war dadku dhiig ma laha miyaa ma dareemayaan miyaa caqli ma laha Soomaalida waxa lagu tilmaamaa inay yihiin dad aad u caqli badan haddana waxa ii muuqata in aysan caqligaas hadda uusan ka fakarin waddanka iyo cirib dambeedka uu ku socdo Itoobiya oo liidata oo Soomaalida ka baqda oo aad uga gariirta maanta waxay ku tala jirtaa in ay waddankaaga qabsato maxaad sugaysaa maxaad la fadhidaa fikirkaaga taladaada waa u muhiim waddanka badbaadadiisa nagala qayb qaado badbaadada waddankeena Soomaaliya